Ka fikir inaad kaliya ka gudubto bad aad u weyn adigoo saaran doon gaadhi ka yar matoor ma jiro dad kale ku caawinaya ma jiraan adiga oo kaliya iyo baddaas furan taasi waa waxa uu sameeyay Fiidoor sanadkii 2013 sahmiyahan Ruushka ayaa bilaabay safar aan la rumaysan karin waxa uu ka shiraacday magaalada Valparaiso oo ku taala xeebta galbeed ee Koonfurta Ameerika ujeedadiisu waxay ahayd xeebta bari ee Australia inta u dhaxaysa labadaas meelood waxa ka soo horeeyay badweynta Pacifica oo ah bad aad u ballaaran qiyaastii 15,000 kiiloomitir oo biyo furan ah 160 maalmood oo xidhiidh ah ayuu kaligiis uga tallaabay badda Pacifica doontiisu waxa ay ahayd qiyaastii 9 mitir oo kaliya waa doon yar oo si dhib ah uga badbaadin karta hirarka waaweyn duufaanno xooggan ayaa ku dhuftay hirar dhaadheer ayaana mararka qaarkood ka sarreeyay dusha doontiisa mararka qaarkood qulqulka badda ayaa dib u riixayay maalmo dhan taasoo baabi'inaysay saacado badan oo si dadaal leh ugu soo waday doontiisa cuntadiisu waxay ka koobnayd cunto qalalan oo la keydiyay halka biyaha ka cabiyay ay ka imaanayeen qalab yar oo milixda ka saarayay biyaha badda si ay u noqdaan kuwa la cabi karo halkaas bartamaha Pacifica qofka ugu dhow waxa uu ka fogaa kumanaan kiiloomitir dhul ma jiro maraakiib ma jiraan kaliya bad aan dhammaad lahayn oo dhinac walba kaaga fidsan si kastaba ha ahaatee maalinta ka dambeysay riixista kadib waxa uu sii waday inuu sii jeesto galbeedka ugu dambeyntiina kadib in ka badan 5 bilood oo kaligiis badda ku jiray waxa uu gaadhay xeebta u dhow Maloloba waxa uu ka gudbay badban isagoo adeegsanaya awoodiisa jir ahaaneed oo kaliya taasina waa mid ka mid ah waxyaabaha uu ninkani sameeyay waxa uu sidoo kale fuulay buurta Everest ee caalamka ugu dheer waxa uu gaadhay cidhifka waqooyi iyo cidhifka koonfureed caalamka xitaa waxa uu ku wareegay dunida isagoo isticmaalaya buufinta hawada kula lagu buufiyo ma rabtaa inaad online-ka lacag ka samaysid dhaqaalena ka kasbatid adigoo mobilkaaga isticmaalaya gurigaagana jooga waxaad u baahan tahay 60 xirfadood ugu yaraan 2 ka mid ah inaad baratid haddaba xirfadahaasi waa kuwee waa AI-da affiliate marketingka cryptocurrency digital products sida online-ka loogu iibiyo e-commerce-ga iyo freelancing-ka haddaba sidee ayaad ku baran karaysaa waxa jira buugaag ku qoran luqadda Ingiriiska haddaba waxa lagaaga soo koobay buugaagtaasi mid kasta oo kamid ah xirfadahana waxa lagu soo koobay luqadda Soomaaliga waxaad helaysaa buug si tafatiran kuugu sharaxaya AI-da affiliate-ka iyo xirfadaha kaleba buugaagtan waxaad ku heli karaysaa iyagoo PDF ah oo e-bookska mid kasta oo kamid ahna waxaad ku helaysaa $1 oo kaliya haddaba $1 ayaad xirfadaasi oo dhan ku dhamaysanaysaa oo aad ku baranaysaa sidoo kalena fikrad aad uga helaysaa kulana shaqo tagaysaa waxaad u baahan tahay kaliya inaad numberkan igala soo xidhiidhid waxaadna 6 buugba ku helaysaa $6 oo kaliya waxaad ku baran doontaa tooliska muhiimka sida lacag looga sameeyo farsamooyin iyo tricks qarsoon sida aad uga shaqaysan karto meel kasta adiga oo jooga dhammaan waxay kugu diyaarsan yihiin iyagoo e-books ah oo PDF ah mobilkaaga ayaad ku helaysaa isla markana waad ku shaqo tagaysaa 6daas xirfadood marka aad fahantin sida dadka online-ka uga shaqaystaan hadda dalbo oo hada hel numberkaas shashada saaran igala soo xidhiidh